jaamacadda bariga Afrika farceeda Galkacyo ayaa waxaa ka aflaxday arday gaaraysa 120 arday oo dhameystay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda bariga Afrika heerkeeda aqoonta. Munaasabadda qalinjibinta ardayda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dawladda Puntland oo ugu horeeyay madaxweynaha dawladda Puntland, wasiirka waxbarashada Puntland, guddoonka waxbarashada gobolka Mudug, maamulka jaamacadda bariga Afrika farca Galkacyo iyo Puntland, ismo waalidiin iyo ardayda jaamacadda oo isugu jira ardayda hadda dhigata iyo kuwa qalinjibinaya. Munaasabadan ayaa waxaa gacan weyn ka geystay shirkadda Golis farceeda Galkacyo oo xiriir dhow la leh waxbarashada. Sheekh Aadan Maxamed Cigaal, maamulaha jaamacadda bariga Afrika farca Galkacyo ayaa ugu horeyn wuxuu madasha ku soo dhaweeyay dhammaan martida xafladda isagoo ka warbaxshay marxaladihii jaamacadda ay soo martay intii ay ka jirtay magaalada Galkacyo. waxaan maartay si khaas ugu mahad celinaya madaxweynaha oo waqtigiisa qaaliga ah iyo hawlihiisa badan noo huray in uu maartay nagala soo qayb galo munaasabadan iyo wafdi kale la socdaba. madaxweyne iyo mudanayaal sida la sheegay jaamacadda bariga Afrika farca Galkacyo waxaa la aasaasay sanad dugsiyeedkii 2006-2007 laga soo bilaabo sanad dugsiyeedkaas ilaa maantana shaqadii waa ay wadaa. sanad walbana gobolka Mudug waxay u soo saartaa arday iyo aqoon-yahano ka qayb qaadanaya horumarka iyo waxtarka bulshada ay u baahan tahay. inta kadib jaamacaddu sidaan magaca ka sheegnay waxay farac ka tahay jaamacadda guud ee bariga Afrika oo laga aasaasay gobolada Puntland sanadkii 1999-2000. maareeyaha shirkadda Golis Farax Botan Farax ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda ardayda ku qalinjibinaysay isagoo ardayda kula dardaarmay inay ka dhaweeyaan hadafkooda waxbarasho. cilmigiina iyo dadaalkii aad soo marteen iyo juhdiga badnaa ee waxa weeye la idingeliyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye idinku anfaco. saakana aad baan kala qayb qaadanaa waliba ka shirkadahan waxa weeye bahda waxbarashada waa aad baan isugu dhownahay. waxaa saaka runtii aan arkaa waxa weeye shaqaalaha iyaga waxa uu ka mid naftigeeda oo ka mid ah rag qalin jabinaya. inta kalena waxaan rajaynayaa waxa weeye inaan maartay iyadana isku dhownahay ama waxa weeye ay company ka noqdaan waqtiga dhow. Professor Abshir Yusuf Ciise, wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa ka hadlay xafladda qalinjabinta isagoo u hambaliyay ardayda ka qalinjabisay jaamacadda bariga Afrika farca Galkacyo. maanta ay sharaf weyn noo tahay in arday baaxadeedu tahay 120 arday ay jaamacadda ka qalinjabiso. aad iyo aad baan arintaas aan ugu faraxsanahay runtii. qofku inuu bulshadiisa wax taro oo ka qayb qaato dawladdu waydinka dawladda la isgarab taago waxay idinku hogaaminayso gacan laga siiyo markaas ummaddu horumartaa. madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in farxad u tahay inuu kala soo qayb galo ardayda qalinjibinaysa sidoo kalena ardayda ku dhiirigeliyay inay sii wataan waayahooda waxbarasho. farxad bayna ii tahay aniga iyo inta kale maanta idin timidba inaan kala soo qayb qaadano farxadda marka inaad dadaasheen dadaalkii halkaan soo gaarsiiyay waan kala bogaadinaya. hal bogaadinaya sidoo kale aabayaasha iyo hooyooyinka anaga ay xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya iyo Puntland talaba qofka ugu dhaqaale badan Puntland dib ku noqonaysaa 1 2 3 4 arday inuu inta garaaska laga soo bilaabo elementary school ilaa jaamacad ka bixiyo wax dhib badan weey. taas weeye sababta aan u raadinayno in dawladnimada Soomaaliyeed wanaagsan la helo. sababta waxa dawladdu ku siin karto nidaamka dawliga waxa uu ku siin karo qoysna kuma siin karo aabna kuma siin karo kuma siin karo furtaas weey. gunaanadkii madaxweynaha Puntland iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa waxay shahaadooyin guddoonsiiyeen ardayda ka qalinjabisay jaamacadda bariga Afrika farceeda Galkacyo kulliyadaha kala duwan. Maxamed Cabdi Casiis Warsame, Galsan TV, Galkacyo.